10 shay ama 10 waxyaabood oo maanta la qaban karo si loo wanaajiyo dhaqaalaha Soomaaliya. Haddaan mid isu dul taago 10ka waxyaabood waxaan horeysiinayaa in la sameeyo dalka Soomaaliya dhexdiisa laga sameeyo maalgashi. Maalgashiga waxaa sameynaya waxaan kusoo koobayaa 2 qolo mid waa inay sameyso. Labaduba waa inay sameeyaan absolutely. Maalgashigu waxaynu ognahay inuu yahay mid wax badan abuuri kara isla markaana looga baahan yahay foreign people-ka ha noqdaan shirkado waaweyn, ha noqdaan small industries, ama ha noqdaan waxa weeyaan shakhsiyaad personal private ama waxa loo yaqaano ownership business. In maalgashi dalka laga sameeyo waxa weeye waa qodob taageeraya dhaqaalaha ama kor u kaca dhaqaalaha wadanka Soomaaliya. Sidoo kale diaspora dadka Soomaaliyeed ee qurbo joogta ee dalka dibadiisa ku maqan isla markaasna waxa weeye dhaqaale fiican haysta, iyagana waxa waajiba inay sameeyaan waxa loo yaqaano maalgashi ama investment. Natural resource qodobka labaad waxa weeye in laga faa'iideysto kheyraadkeena dabiiciga ah. Kheyraadka dabiiciga ah waxa kamid ah number 1 xoolaha oo si toos ah ay Soomaalidu ugu tiirsan tahay. Waxa kamid ah waxa loo yaqaano badda oo ay ku jiraan nooc kasta oo maxaan ku yiraahdaa xayawaana isla markaana faa'iido badan dunida kale. In la sameeyo waxa loo yaqaano fossil fuels ama shidaalka, macdanta ceeriin, waxa weeye dahabka, waxyaabaha oo natural resource-ka ama kheyraadka dabiiciga ah Ilaahay ina siiyay oo waxa weeyaan 70% wadamada ugu kheyraadka badan dalka Soomaaliya ayuu in ka sheegtay inay tahay isla markaana dihin iyadana waa in kheyraadka dabiiciga laga faa'iideysto. Qodobka saddexaad ee aan soo galay waxa weeye waa shaqo abuur in la sameeyo. Markasta oo number of employment rate ku bato ama unemployment rate ku bato waxa dhacaya waxa loo yaqaano social scarcity economy. Classes bay dadku yeelanayaan. Social classes-ka ay yeelanayaan waxa weeye dabaqaadkii baa sameysmaya. Markasta oo shaqo abuur ku bato dabaqada hoose ayaa laga sii guuraya oo dadku the middle class iyo higher class bay noqonayaan. That means marka waxa weeye qofka marka per income in household based la eego waxa kobcaya dhaqaalihii wadanka. Number 4 xasilooni nabadeed waa in la helo si dhaqaalaha ama loo sameeyo loo wanaajiyo dhaqaalaha wadanka Soomaaliya. waa in la helaa security and stability oo waxa weeye aad iyo aad wax dalka ugu badan xasilooni darrada ama amni darrada oo claim base qabiil la soo haysto in deegaan la soo haysto waxa weeye marka haddii nabadgelyadu ay badato dhulku wuxuu noqonayaa mid korkiisa dhaqaale uu sii socon karo waxa weeye amni darrada oo aafo weyn oo ummadda Soomaaliyeed ragaadisay sidaan qabo qodobka shanaad ee aan gudbaya waxa weeyaan in aqoonta kor loo qaado ummadda Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa 1960 before waxay ahaayeen dad 99% illiterate wadacadaha noqoto laakiin inta wixii ka dambeeyay bay noqdeen dad madax la soo kacayo macalluqadooda la bilaabay in la qoro okay marka waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed graafkooda waxbarasho uu hooseeyo in kor loo qaado aqoonta markasta aqoonta kobcdana waxa kobcaya waa laba isku xiran when the knowledge increase the economy increase oo qofka aqoonta lahaa wuxuu garanayaa siyaabo badan oo uu nolosha u maareeyo waxa uu bixinayaa contribution maskaxeed waxa uu bixinayaa mid aqooneed
waxa uu bixinayaa kala fadhiyo aqoonaysan, waxa uu darasi karaa oo saadaalin karaa waxa weeyaan 100 years prediction marka in aqoonta kor loo qaado iyadana waa qodob aan qabo inuu dhaqaalaha Soomaaliya ku kordhayo meel badan aan ka eegay qodobka lixaad ee aan gudbay waxa weeye isdhexgal bulsho in la abuuro ma jeedo Soomaalida kaliya laakiin Soomaaliya waa inay noqotaa sida wadamada caalamka wadan u furan bulshada adduunka oo tourismkii waxay leenahay meelaha ugu quruxda badan marka meelaha ugu quruxda badan dalka Soomaaliya dalxiiska loo yimaado ku yaalaan waa dal wax kasta leh bad leh oo buur leh oo bari leh oo webi leh oo kayn leh oo banaan leh oo xoolo leh oo durjoog leh marka kaliya haddii uu yahay wadan umada u furan oo bulshada kasta ay iman karto xafladaha lagu qabsado iyo dalxiiska loo yimaado wax badan dadkaasina raad bay kaga tagi lahaayeen waa dadkii dalka maalgashan lahaa aan wax badan ku abuuri lahaa qodobka toddobaad ee aan gudbay waxa weeye in la dhoofiyo waxyaabaha aan qaniga ku nahay inagu waxyaabo badan baynu qani ku nahay qani waxaynu ku nahay milixda oo kale waxaynu qani ku nahay kalluunka simple example inagoo aan wax badan bagelin inagoo aan dhir iyo kaymo iyo raw material fara badan dhoofin haddana waxyaabo yararo simbalo aynu qani ku nahay isla markaana aynu marka waxyaabaha dalkeeni wuxuu noqday kaliya dal export wax kasta ay dibadda uga soo degaan marka waxa yaraanaya inaad wax iska kantarooshid inaad awood yeelatid dhaqaalahaagii oo dhan waadigan waxaagiiba dibadda kala soo degaya marka dee baraysku kugu soo dego waa waxyaabaha inflationka keena iyo waxa weeye sicir bararka qodobka sideedaad aan u gudbay waxa weeye in la sameeyo cilmi baaris oo sanadka halkeenu joognay iyo waxa weeye halkeenu sanadka dambe u soconaa iyadana waa wax isweydiin mudan aan la socono graafkeena nololeed graafkeena dhaqaale haddana nahay ummadda Soomaaliyeed in cilmi baaris la sameeyo oo khubro la sameeyo waxa weeye markasta la socoto bulshada halka gaabku ka haysto iyo halka ay ku wanaagsan yihiin sanadkii dhaweyd halkay joogaan iyo sanadkii waxa weeye ka imika la joogo dakarnan yarka halka ay joogaan okay qodobka sagaalaadan waxa weeye u gudbaya waxa weeye isaguna ee ku saabsan intaskaas ninkayga la iska kantaroolo waxyaabaha dibadda laga soo dejiyo waxaynu nahay bulsho every item ay u soo degaan waxaa xasuusta dalka gudihiisa wax ka soo baxa oo aan dibadda nooga iman dalka gudihiisa wax badan baa ka soo baxa khudaar baa ka soo baxda waxaa ka soo baxa sharaabo sooda baa ka soo baxa waxa weeye sharaabada soodaha ayaa ka soo baxa biyaha ka soo baxa haddana waxa weeye outside-ka nooga yimaadaan marka in la joojiyo lagu dadaalo in wax soo saarka dalka laga faa'iideysto si aynu waxa weeyaan the foreign consumptionka aynu uga nasano chainka dheer ama processka dheer ee uu soo maro waxa loo yaqaano product raw material buu ka yimaadaa waxa uu tagaa waxa la yiraahdo final consumption ama final consumer process badan baa ku dhex jira warshadeyn leh oo waxa weeyaan shaqaaleyn leh oo soo dhoofin leh oo dejin leh oo waxa weeyaan cashuurid leh ilaa iyo waxa weeyaan retailer leh wholesaler leh saa u soo soco inaad customer noqoto lana consumer inagu marka waxa weeye chainka dheer raw material ka industrial managementka waxaynu nahay ilaa 7 process waaweyn mara final consumer markasta aad noqoto quutaha u dambeeyana waxa yaraanaya go'aankii aad ku sameyn lahayd waayo de waxa tahay qof loo adeego hadii adeega laga jaro noloshaadu way dhamaanaysaa ummadda Soomaaliyeed qodobka ugu dambeeya tobnaad ku baraarujinaya ama isleeyahay waxba ku wanaagsanaan lahaa waxa weeye waa dawlad wanaagsan in sidii dawlad wanaagsan loo abuuran lahaa
in laga fikiro haddii ay dowlad wanaagsan dhalato waxaa dhici lahayd in ummaddu ay hesho cid hagta inay hesho bangi awoodii leh oo jaangooya lacagihii adduunka iyo kuwii dalka value badan ma laha lacagta dalka Soomaaliyeed ee hadda dalka laga dhex isticmaalo waxa ka value badan lacagaha qalaad sida doolarka oo kale sida gobolada qaar waxa weeye Ethiopian money-ga Kenyan money-ga waxa weeyaan meelaha qaar ee Somaliland money inay xataa lacagtii Soomaalida dhexdeeda isku raacsanayn marka in dawladda lafteeda la xoojiyo waa my conclusion cilmi baaris daraasad ay samaysay 2001kii saas waxay nahay dawlad fiican waxay nahay ummad wali dhaqaalahooda korayo waxa la yiri celcelis ahaan ay samaysay waxa way qaramada midoobay waxay sheegtay inay 1.4 bilyan ay sanadkii soo saarto dhaqaaluhu uu yahay inta uu yahay beeryaar 2009 haddana waxa la ogaaday 5.73 inuu noqday waa garaaf xawli oo aad u kacayo waxa jirtay hay'adda sirdoonka adduunka haddana UN-ku 2018 cilmi baaris ay ku celisay Google Drive ka helay oo telegraph ku jira maqaalka yar aan arkay waxa ku qoran inay 7.946 uu mariyo waxa weeye dhaqaalaha dalka beeryaar inta soo saarto marka waxaad garanaysaa inuu yahay koboc fiican socdo iyadoo cidina aanay hagayn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh